ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka. Qodobada barnaamijkan aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan oo saakay weerar culus oo loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado daroon ah ku qaaday 8 saldhigyo ciidan oo Mareykanku uu ku leeyahay wadamada Khaliijka. Weeraradan ayaa looga jawaabayay duqeymo Mareykanku uu ku ekeeyay goobo ku yaal gudaha Iiraan. Madaxweyne Trump oo Iiraan digniin ku siiyay in jiritaankeeda la weyn doono haddii ay sii wado waxa ugu yeeray faralka nacasinimada ah. Trump oo lagu eedeeyay inuu jabiyay qaraarkii dhawaan u ansixiyay Koongareeska ee xadidayay awoodaha dagaalka. Israa'iil oo weerar kala duwan oo dhimasho dhaawac sababay ku qaaday Syria, Lubnaan iyo Gaza. Erdogan oo ka digay in Sahyuuniyadu ay bartilmaameedsanayso Turkiga isagoo sidoo kale difaacay xirashada xijaabka ama gambada gabdhaha muslimiintu ay madaxa ku asturtaan ama tinta. Xildhibaano ka tirsan Koongareeska Mareykanka oo si adag uga hor yimid qorshe maamulka Trump oo kaga iibinaya Turkiga matoorada diyaaradaha dagaalka. Dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka. Soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. Haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Saaka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Turkiga. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa xiisad culus oo dhanka diblomaasiyadda ay ka dhex aloosanayd Turkiga iyo Israa'iil. Xiisaddu waxay sii xoogaysatay markii uu qarxay dagaalka Gaza oo Israa'iil ay ku ekeysay dhulalka Falastiiniyiinta weeraro iyo duqeymo ay ku geeriyoodeen kuna dhaawacmeen dad ka badan 200,000 oo qof. Erdogan ayaa si joogta ah wuxuu u eedeynayay Israa'iil. Dhinaca kale, Netanyahu iyo xubnaha kale ee xukuumadda Israa'iil ayaa iyaguna waxa ay si adag u cambaareeyaan una weeraraan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heer waxay gaartay labada dhinac. Erdogan lagu eedeeyay inuu yahay wasiirka loo yiri dictator ama kaligi taliye. Erdogan dhankiisa isna sida uu yiri Netanyahu wuxuu yiri waa naazigii Jarmalka oo kale. Xaaladdu cirka ayay maraysaa haatan dhanka diblomaasiyadda. Macahdida arrimaha amniga iyo khibrada labada dhinac iyo weliba xitaa saxafiyiinta ayaa waxay qorayaan faafinayaan hadalla xanaf leh suurtagalna waxa ah bal leeyahay labada dhinac inay mar uun isfarasaaraan. dhawaan Israa'iil waxay ku tilmaamtay Turkiga inuu uga halis badan yahay Iiraan. Haddaba madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay galikii dambe wuxuu jeediyay hadal aad u adag oo Israa'iil si ba'an ugu weerarayo. aynu eegno wararkii amurtan laga diyaariyay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay shacabka Turkiga sida uu yiri fikirka Sahyuuniyadda kaas oo bartilmaameedsanaya guud ahaan dowladda Turkiga isagoo sidoo kale difaacay xirashada xijaabka ama gambada gabdhaha muslimiintu ay madaxa ku asturtaan ama tinta. Erdogan ayaa sheegay in fikirka Sahyuuniyadda ee ku dhisan sida uu yiri xasuuq guumaysi iyo faditaan uusan bartilmaameedsan isaga shakhsi ahaan oo kaliya xisbiga uu hogaamiyo ee AKP ama isbahaysiga shacabka balse uu beegsanayo dhammaan shacabka Turkiga. Sidaas darteed marka aan la dagaalamayno Sahyuuniyadda oo ma dagaalamayno nafteeda ama dana gaar ah balse waxaan u dagaalamaynaa badbaadada dalkeena iyo shacabka oo dhan ayuu yiri madaxweynaha Turkiga intii uu ka hadlayay munaasabad uu qabtay xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP. madaxweyne Erdogan ayaa si adag u difaacay
xijaabka iyo xorriyadda lagu xirto isagoo sheegaya in xisbigiisa uu halgamay xaqiijinta xuquuqda gabdhaha iyo haweenka oo sannado badan laga mamnuucay inay timahooda asturtaan. qof walba waa inuu ogaada in xijaabka uusan ahayn wax aan caadi ahayn oo bulshada ka baxsan ama xagjirnimo ah, sidoo kalena uu astaan u ahayn fikir ama mabda' gaar ah. xijaabka nooc kasta uu yahay wuxuu matelayaa xaaladii caadiga ahayd ee dalkan ka jirtay 1000 sano, wuuna si ahaan doonaa sidaasi ayuu yiri madaxweyne Erdogan. waxaa kaloo uu sheegay in tani markii la aasaasay xisbiga AKP uu garab istaagay isdhexgalka bulshada, isu soo dhawaanshaha iyo dib u heshiisiinta halkii uu ka abuuri lahaa kala qaybsanaan, takoor, ka saarid ama faquuqid. Erdogan ayaa sidoo kale wuxuu aad u weeraray xisbiga mucaaradka ee CHP isagoo sheegay in uu tartanka siyaasadda u bedelay colaad, kala duwanaanshaha siyaasadeedna uu bedelay kala qaybsanaan, khilaafkii fikradana uu bedelay iska horimaad, isla markaasna mar walba uu ka faa'iidaystay xiisadaha iyo kala qaybsanaanta. ma jiro ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo dhanka Israa'iil ka soo yeertay oo la xiriira hadalladan adag ee ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. intaana ka bixin wararka la xiriira Turkiga, dhawaan waxaan idin soo gudbinay warbixin la xiriirta in maamulka madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday in Turkiga laga iibiyo matoorada diyaaradaha dagaalka. laakiin arrintaasi waxaa la soo warinayaa inay ka hor yimaadeen xubno ka mid aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka. warbixin arrimahan la xiriirta waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise. 4 xubnood oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka asal ahaan ka soo jeeda Greega kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa si cad uga soo horjeestay qorshe maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in Turkiga looga iibiyo matoorada diyaaradaha dagaalka ee F-110 ee Mareykanku uu soo saaro. xildhibaanada kale ah Gas Bilirakis, Nicolo Malitekos, Mikhail Haridopoulos iyo Jimmy Patrionis ayaa sheegay in Turkigu aanu weli buuxin shuruudaha sharciga ah ee Mareykanka, isla markaana aan loo ogolaan karin in uu dib ugu biiro barnaamijka diyaaradaha casriga ah ee F-35. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ayay ku sheegeen in Ankara ay weli tahay waa sida ay hadalka u dhigeen il xasilooni darro ka abuureysa bariga badda Mediterranean-ka, iyagoo ku eedeeyay muranka badda, joogitaanka ciidanka Turkiga ee waqooyiga Qobrus iyo hadallada adag ee ka dhanka ah Israa'iil. khilaafka u dhaxeeya Washington iyo Ankara ayaa soo bilowday sanadkii 2019 markii Turkigu uu iibsaday nidaamka difaaca gantaalada ee Ruushka uu farsameeyo ee S-400, kaas oo sababay in laga saaro barnaamijka F-35 isla markaana lagu soo rogo cunaqabatayn. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in maamulka Trump uu si rasmi ah ugu wargeliyay Koongareeska qorshe ku kacaya in ka badan $700 milyan oo lagu iibinayo matoorada diyaaradaha F-110 kuwaas oo loo adeegsan doono diyaaradaha dagaalka kan ee Turkigu uu soo saaro. si kastaba ha ahaatee, xubnaha Koongareeska Mareykanka ayaa haysta 15 maalmood oo ay ku hor istaagaan heshiiska, inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu awood u leeyahay in uu diido is hor istaag kasta. Yaxya Ciise, HBN Online TV. Yaxya aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatan waxaynu u gudbaynaa warar la xiriira weeraro Israa'iil ay ka geysatay Syria, Lebanon iyo Gaza. xagga Syria aynu ku hormarnay waxaa soo baxaya warar laga helayo dhanka militariga Israa'iil oo ay ku sheegayaan inay dileen dhowr qof oo hubaysnaa kuwaasi oo lagu dilay gudaha waddanka Syria. waxaa lagu tilmaamay sida dalka loo dhigay argagixiso dadka la dilay. militariga Israa'iil wuxuu sheegay inuu sii wadi doono hawlgallada ka socda deegaanada uu qabsaday si uga hortago khatar kasta oo ka dhana shacabka iyo ciidanka Israa'iil, inkastoo goobaha hawlgalkan uu ka dhacay dadkan lagu dilay ay ku yaalaan gudaha waddanka Suuriya. bishii December 2024 ciidamada Israa'iil waxay galeen waxa lagu tilmaamay aagga kala xadaynta ee qaramada midoobay ay ka samaysay koonfurta Syria, taas oo lagu tilmaamay jebinta heshiiskii xabad joojinta ee dhacay 1973. qaramada midoobay waxay sheegtay in Israa'iil ay hadda haysato dhul dheeraad ah oo ka tirsan dalka Suuriya. dhanka Lebanon,
militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu fuliyay weerar ka dhacay magaalada Nabatiyah ee koonfurta Lebanon isagoo ku andacooday inuu beegsaday dagaalamayaal ka tirsan Hezbollah. bayaan ka soo baxay ciidanka Israa'iil ayaan lagu shaacin tirada dagaalamayaasha la dilay, waxaana la sheegay weerarkan sidoo kale in lagu burburiyay waxa lagu tilmaamay goob laga rido gantaalada oo ku taal isla deegaankaasi. weerarkan ayaa dhacay maalin oo kadib markii Israa'iil iyo Lebanon ay kala saxiixdeen heshiis horodhac ah oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda u dhaxaysa labada dhinac, inkastoo rabshaduhu weli ay sii socdaan. xagga Gaza waxaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay Israa'iil ay kordhisay weerarada iyo duqeymaha ay ka geysanayso jidda Gaza. Falastiiniyiin kala duwan oo isugu jira haween, carruur iyo dad waayeel ah iyo rag ayaa lagu soo waramayaa in dhimasho dhaawac loogu geystay weeraradaasi, inkastoo lagu jiro waxa loogu yeeray heshiiska xabad joojinta oo la gaaray bishii Oktoobar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay. hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan oo weeraro culus ku qaaday saldhigga Mareykanku uu ku leeyahay wadamada Khaliijka, iyo wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan Trump oo hanjabaad culus u jeedinaya Iiraan. intaan u gudbin wararkaasi iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter ama X iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar faaclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. hagaag xaaladda bariga dhexe saaka waa bariga dhexe 24 saac la soo dhaafay weerar iyo weerar celis ayay iswadaarsadeen Mareykanka iyo Iiraan. madaxweyne Trump digniin culus ayaa ka soo yeertay oo uu leeyahay weliba Iiraan jiritaankeeda ayaa la weyn doonaa. intaan u gudbin warkiisa waxaynu ku hormaraynaa war ka soo baxay dhanka Mareykanka. xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa mar kale gaartay heer aad u sahreeya kadib markii ciidamada Mareykanku ay duqeymo xooggan ka fuliyeen bartilmaameedyo kala duwan oo ku yaala gudaha Iiraan, iyagoo ku andacoonaya in tilaabadaasi jawaab ay u ahayd weerar Iiraan ay ku qaaday markab ganacsi oo shidaal siday oo lagu magacaabo Kiko, kaas oo ku gooshayay calanka Panama, waxaana uu marayay Mareyka Hormuz. markabkan ayaa siday in ka badan 2 milyan oo fuusto oo shidaalka ceeriin ah. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska dhexe ciidanka Mareykanka ee CENTCOM, duqeymuhu waxay beegsadeen xarumaha lagu kaydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, xarumaha difaaca cirka, nidaamyada isgaarsiinta, kaabayaasha kormeerka militariga iyo goobaha lagu diyaariyo miinooyinka badda. goobaha ay beegsadeen ciidamada Mareykanka ayaa ah bartilmaameedyo ku yaala gobolka Mareyka Hormuz. taliska CENTCOM ayaa xaqiijiyay in dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga maraysa Mareyka Hormuz imika si caadi ah ay u socdaan, halka ciidamada Mareykankuna ay ku jiraan heegan iyo diyaar garow dagaal oo aad u sareeya.